kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararku idin haya telefishinka SDN waxaana kamida munaasabad lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka dhacday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xilka si rasmi ah maanta ula wareegay ciidamada Kenya oo dad rayida mar kale ka afduubtay gobolka Gado guddiga doorashooyinka Hirshabeelle oo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle wararka caalamkana waxaan idin haynaa madaxweyne Trump oo qof haweeney u magacaabay garsoorka maxkamadda sare intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararkan idin hayno imikana u diyaar garooba iyagoo dhameystiran aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta si rasmi ah xilka ula wareegay sidoo warkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Umar Cabdullaahi Xasan munaasabad ballaaran oo ka dhacday xarunta madaxtooyada gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa si hay'adii xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu xilka si rasmi ah ugu wareejiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble munaasabada ayaa waxa goobjoog ka ahaa xubno uu kamid yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibraahim Muudey iyo xubnaha sihayaasha golaha wasiirada iyo qaar kamid ah safiirada beesha caalamka ee jooga Muqdisho ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa dukumeentiyada kala wareegay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo muddo 50 cisho ah sii hayay xilkaas kadib markii xildhibaanada golaha shacabka iyo codka kalsoonida ay kala laabteen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre mudane ra'iisul wasaare waxaa farxad noo ah maanta inaanu kugu soo dhaweyno xafladan xilwareejinta xukuumaddii xilhaynta ay shaqaday sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xilwareejina waxqabadkii dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee 2017 ilaa 2020 kuwaasoo ku salaysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka 4 sano ah ee loo igmaday inuu dalka hogaamiyo sida xasuusataan haddaan soo koobo ballanqaadka madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dib u heshiisiinta dib u eegista dastuurka dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta sareynta sharciga iyo dib u habaynta hay'adaha garsoorka xoojinta nidaamka federaalka ah iyo hirgelinta doorashooyin dimuqraadi ah oo dalka ka qabsooma arrimaha amniga wax badan baa ka hirgalay kana qabsoomay madaxweynuhu markii uu muddo kooban joogay xilka hayay waxa uu tagay wasaaradda gaashaandhigga oo aawada ogeydeen in uu muddo deganaa xafiis ay u ahayd xarun ay u ahayd waxa uu eegay sida ay u dhisan yihiin ciidankeena maamulkooda qaabka hagidooda waxa uu muuqatay in lagama maarmaan tahay in ciidanka qaranka la diiwaan geliyo oo la ogaado qof kasta fayl yeesho qof kasta raadraac yeesho qof kasta meel loo maro yeesho xuquuqda uu dalka ku leeyahayna uu helo maadaama waajib iyo xuquuqi saaran tahay arintaas madaxweynuhu waa ka dhabeeyay waxaanu xukuumadda faray in la diiwaan geliyo dhammaan ciidamada qaranka dhinacyadooda kala duwan maanta waxaynu haysanaa diiwaangelinta ciidamada oo raadraac sugan leh tababarkoodii oo la teeyay qaybihii kala duwanaa ay lahaayeen oo aad loo xoojiyay karti iyo awoodna maanta u leeyihiin in ay wiiqaan al-shabaab iyo nabadiidka amnigana gacanta ku hayaan waxa kale oo shaqo weyn aynu ka qabanay iyadoo laga turjumayo siyaasadii hagidii madaxweynaha dib u heshiisiinta dalka oo xasuusataan markii la doortay madaxweynahaba in magaalada Gaalkacyo oo aan anigu nabadeynteeda ka shaqeyn jiray 2016 ay horseed u noqotay dadku labada dhinacba inay isaga gudbaan dib u heshiisiinta kaana qaatay gobolka Mudug Shabeellada Hoose iyo Galguduud iyo meelo kale oo dalka kamid ah iyo in aynu salka u dhignay qorshaha dib u heshiisiinta qaranka oo maanta hage inoo ah dib u eegista dastuurka oo dhameystiran dhinacyadeedii xagga farsamada guud ahaan cutubiyadii ay ka koobnayd oo shaqo weyn oo iyadana la qabtay ah maamulada iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedaduna ka wada qayb qaateen dhameystirkiisuna wasaaradda dastuurka iyo xukuumadda iyo hay'adaha dastuurka u xil saaran ee labada ahba ay u taalo inay meel mariyaan
dib u habeynta dhaqaalaha wax badan baad ka warqabtaan oo guddida dhaqaaluhu horseed u ahayd wax badan oo shalay ugu dambeysay intii xukuumadda xilgaarsiintu IMF iyo World Bank deyn cafiska mashruuca aynu kala shaqaynaynay sida uu hore ugu maray dakhligu u kordhay miisaaniyadii 2017 iyo maanta 2020 faraqa weyn ee u dhaxeeya ka warqabtaan oo ogtihiin waxaanu dhaxalnay 25 wasaaradood 26 wasaaradood xukuumaddu ka mid tahay 25 ka mid ah dakhli ururin jiray dhowr iyo 10 shirkadoodna magaca dawladda federaalka Soomaaliya ayay ku ururin jireen dakhliga oo u ekeyd in nidaamka dakhliga ama cashuuruhu ay qayb ahaan barafitaasi yihiin shaqo weyn baa laga qabtay maanta waxa ay wasaaradda maaliyaddu hormuud u tahay nidaam midaysan oo dakhli ururin ah iyo serviceka ama adeegyada la qabto oo meel ku ururay garsoorka iyo cadaaladda dib u habeyntiisa ayaa wax badan laga qabtay golaha adeega garsoorka oo meel maray golaha shacabkana hor yaal jaranjarooyinka u harayna inay marta ay tahay iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyaduna ka mid ah halbeegyada dowladnimada muhiimka u ah mudane ra'iisul wasaare aragtida madaxweynuhu waxay ahayd dalkan in siyaasad iyo sharci lagu kala hago intii xukuumaddani shirtay 760 sharci iyo heshiis oo caalami ah ayaa maray 23 ka mid ah way dhaqan galeen oo madaxweynuhu uu saxeexay marka waxay tusaysaa in sharciga iyo nidaamku halbeeg iyo hage u yihiin dalkan waxa aynu ku shaqeynayno Soomaali ku wada joogi karto kuna mid ahaan kartaa ay tahay sharci iyo nidaam iskaashiga caalamiga ah ayaa qayb kale weyn ah madaxweynuhu hormuud ka ahaa isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika oo ay macnaheedu tahay isdhexgalka ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika degta Soomaalida geesku qoomiyad ahaan waa ummadda ugu ballaaran juqraafiga ay degan tahay ummadda geeska Afrika oo dhan taas waxa hormuud ahaa madaxweynaheena waana hirgashay isdhexgal dhaqaale iyo isu socod maanta inuu ka hana qaado geeska Afrika qof kasto Soomaaliyeed meel kasto uu joogabana waxay u tahay faa'iido weyn doorashooyinka ayaa ugu dambeeyay baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka ha yeeshee si dalka la isugu hayo oo la isugu jiido waxa hadda aynu haynaa heshiiska siyaasadeed ay madaxweynaha iyo madaxda dawlad goboleedyadu kala saxeexdeen oo hirgeliyeen golaha shacabkuna uu shalay ansixiyay labada aqal ee baarlamaanku aan raahdo afwan ay hirgeliyeen shalayto oo ay meel mariyeen waxaan ugu hambaliyeynayaa golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed go'aanka taariikhiga ah ee shalayto ay noo meel mariyeen waayo doorashadu waxa ay kaabtaan nabadda in nabad iyo cod lagu kala baxo halkii qori iyo khilaaf iyo dagaal iyo rabshado ay iman lahayd marka almiidaan waasic waxaynu sameyn doonaa oo hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu sharcigaas haddaynu ku xisaabtano heshiiska waxay inoo furayaa fursadna inoo siinaya in miidaan ballaaran oo lagu tartami karo aynu helno ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa sharafi ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27kii bisha September 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa aan mahad gaar u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo igu aaminay mas'uuliyaddan qaran mudanayaasha golaha shacabka ee kalsoonidooda isiiyay waxaan uga mahad celinayaa kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamuud Guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha qowlihii adka ee aad ku wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ee la soo dhaafay insha Allah hadduu Allah subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo waxaan soo dhisi doonaa dawlad tayo leh oo dardar gelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee inaga sugayaan shacabka Soomaaliyeed si aan wax uga qabto tacadiyada lagula kaco haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa taasoo muddo badan lagu soo noqnoqotay waxaan magacaabi doonaa insha Allah qabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista
si uu ugala shaqeeyo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka. waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa ansixintii iyo meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hannaanka doorashada ee la isla ogol yahay. waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u dirayaa ciidamada qalabka sida walaalaheen oo naftooda u horaya amniga dalkeena. sidoo kale waxaan iyadana mahad gaar ah siinayaa ciidamada AMISOM oo qayb ka ah nabadeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka oo garab taagan qarankeena Soomaaliyeed. ugu dambeyntii ballanteenu waa Soomaaliya oo nabad ah, siyaasad ahaan xasiloon, dimuqraadi ah, leh dhaqaale horumarsan, nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool. waadna mahadsantihiin. xil wareejinta maanta ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa meesha ka saartay dalabkii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre uu gudbiyay ra'iisul wasaaraha cusub kaas oo ahaa in uu diyaar u yahay inuu xilka ku wareejiyo. munaasabad lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Aadan Ibraahim Shawqi ayaa faahfaahinaya warkaan. munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka, siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay dalka, haweenka iyo marti sharaf kale ayaa lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya. munaasabada waxaa ugu horeyn ka hadlay Professor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac, gudoomiyaha golaha hogaaminta Habargidir. aad baan u taageeraynaa mas-uul kasta oo hawsha dalka loo doortay inuu dadka samata bixiyo, tilmaan wanaagsan ciddii ilaahay ka siiyo inay siiso waa laga maarmaan. annaguna maanta halkan waxaan ugu nimid inaanu ducayno u muujinno inaan taageersannahay wixii narabido aqoona oo talaa oo waya aragnoana aan diyaar ula nahay ilaahay dartii oo aan dan gaara lahayn. wixii qaldan waa ku dhawaaqayna waa sheegayna, wixii saxsanna waa tilmaamayna waan sheegayna. laakiin see u sheegaynaa weeye si ka duwan sida qaladhaanta ah ee ah midda wax saxi karta oo hoggaanka ama madaxda la doortay tilmaan u noqon karta waxa loogu sheegi karaa ayaan ugu sheegayna. wadooyinka munaasabka ah ayaanan ugu sheegayna. anigu barnaamijka lagu bilaabay waxaa xagga dambe aad ka qaadan doontahay, laakiin dardaaranka aan qolooyinka iga dambeeya oo aan isfilahayo dad ila eg ama iga waayo aragsan iga weyn inay noqonayaan gocasho meesha kuma jirto. tilmaanteena waa duco iyo taageero. madaxweynihii hore ee Hirshabeelle oo kamid ahaa dadka khudbadda ka jeediyay madasha ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha cusub, waxaana uu u fidiyay casuumaad. waxaan kula dardaarmayaa horta xukuumad runtii dagaal badan iyo qas badan gashay ayaa kaa horeysay. xukuumaddaada ha noqoto mid xasilooni iyo deganaansho oo aan buuq badan iyo waxa iyo arrimaha dhexgal. ha noqoto xukuumad soo celisa dhaqan wanaaggii Soomaali ka dhaxeeyay iyo is-ixtiraamkii. ha noqoto siyaasiyiinta, ha noqoto odayaasha, ha noqoto muxuu ahaa guud ahaan shacabka. wasaare reer beledweyne akhbaar ayaan kaaga sidaa, waxay kugu casumayaan beledweyne, waxay u baahan yihiin dowlad garab u noqota. runtii waa ay ciishoodeen, airboortkii dowlad la dhista ma hayaan, biyihii iyo wadigiina dowlad la celisa ma hayaan. reer wasaare waad casuman tahay, reer beledweyne waa ku sugayaan. intaasuna fariin aan idinkaga siday ayay ahayd. Banad Fawzi Yusuf Xaajaadan oo kamid ah golaha shacabka kana mid ahayd marti sharafka madasha ka hadashay ayaa ra'iisul wasaaraha ku sheegtay nin leh aqoonta injineeriyadda dalkana baahi badan uu qabo. oo aan ku raacsanahay sultaankii yidhi waxaa loo baahan yahay dad wax yaqaan oo ku maxay haytay ku munaasib ku ah meelaha la geynayo. waa talo fiican
talada kale fiican waxa weeye in waddankan nabadiisa uu xooga saaro prime ministerku waa diyaarsan dalka aad u yaqaano weliba xirfadaha loo baahan yahay buu yaqaanaa engineering oo dhismaha aadru dhiska iyo weliba deegaanka cilmiga deegaanka dalkan duufaano daadad si lagu qubay maxay ahayd dhibaato badan baa jirta waa uu cilmiyada yaqaan weliba dalkoo dhan buu ka shaqeeyey wax badan buu qaban karaa hambalyo waadaan usoo dhaweynayaa waxaa kaloo aan uga mahadnaqayna madaxweynihii soo xulay qof ku habboon maanta maxamed xuseen wuu u qalmaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Axmed Gabale ayaa ugu baaqday ra'iisul wasaaraha cusub in dhammaan xubnaha golaha wasiirada uu ka dhigo haween sida ay hadalka u dhigtay haddaan joogno waxaan rabaa hal tala ah inaan ra'iisul wasaaraha la wadaago ugana dhigo fariin culus oo ka timid hooyo Soomaaliyeed anigoo jecel inay idinkuna igu raacdaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa lagu soo celiyay ra'iisul wasaaraha waqtigiisu waa kooban yahay waa ognahay waqti kooban iyo dhibaatada Soomaaliya iyo wax qabadka ay u baahan tahay isma kaamili karaan ama isma keeni karaan laakiin waxaa taariikhda wax ka bedeli karaa muujin karaa ra'iisul wasaaraha dareenkiisa iyo waxqabadkiisa haddii uu yahay xukuumaddiisa oo dhan uu ka dhigi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed sababtoo ah gabdhaha Soomaaliyeed shuruud kuma xiraan waxqabadka dalkooda shuruud kuma xiraan dowladnimadooda mana khiyaanaan dalkooda iyo dadkooda waxaan qabaa afartaas bilood iyo wixii kale ilaahay qoro oo maaragtay yimaadada in xukuumaddan ay noqoto xukuumad ay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan ay buuxiyaan kaalimaha dowladda looga baahan yahay taasoo aan aaminsanahay inay ka miro dhalin karaan ugu dambeynna madasha waxaa soo xiray imaamka beelaha mudulood imaam Maxamed Yuusuf isagoo halkaasna duco ka soo jeediyey inaan dhahno haddii alla yiraahdo ilaahay kuu dhib yaree anaguna aan la shaqeyno oon ku fiirsan waa sugeynay haddii ilaahay yiraahdo haddii ilaahay noo keenan inaan dhahno walaalkayno garabkaagaan taagannahay allaha kuu dhib yareeyo Soomaaliya maanta saatana lagu magacaabay haddii alla yiraahdo si degdega ilaahay adiga hawsha lagu diray kugu dhib yareeyo ducadaasaan isugu dhimiday walaalkayna wax kale isugu imaan waxaana leenahay haddii alla ra'iisul wasaaraha ilaahay kuu dhib yareeyo adigana haddii alla yiraahdo kaliya lagu sugayo waxa laga sugayo Allah ka soo fududeeyo banaanbixi ugu weynaa ee looga soo horjeedo xadgudubka ciidamada Kenya ay ka geysteen gobolka Gado ayaa maanta ka dhacay degmooyinka gobolkaasi Gado sidoo warkan ku faahfaahinaya wariyahayaga Umar Cabdullaahi Xasan isu soo baxyo lagu baroordiiqayo falkii toddobaad ka hor ka dhacay tuulo hoos tagta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado isla markaana ay geysteen gawaarida gaashaman ciidamada Kenya nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ay ka geysteen tuulo hoos tagta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado isu soo baxyadan ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyinka Doolow iyo Balad Xaabo ee gobolka Gado dibadbaxayaasha ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin la dagaalanka ciidamada Kenya ee gobol-falada ka geysta deegaano ka tirsan gobolka Gado ee Soomaaliya ciidamada Kenya ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ayaa mararka qaar waxay sameeyaan falal liddi ku ah amniga hayeeshee dibadbaxayaashu waxay baaqdheer u direen shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waxayna sheegeen in gurmad degdeg ah la soo gaaro dadka ku dhibaataysan deegaan ka tirsan gobolka Gado ee Soomaaliya taas waxaa dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa meel uu joogaba in dhigiisa maalin walbo dawaca ay cunayso libax ma ahan durwa ma ahan shabeel ma ahan carar nagalama baxsan karaan mana iska celin karaan waxay idin sheegaynaa dadka la iska cunaya inay dawaca cunayso oo ummadda Soomaaliyeed dawaca waxaan ka codsanaynaa ciidamada Soomaaliyeed ee sharafta leh meel kastaaba ha joogeen waxa dhamaanaya waa walaalihiin iyo aabbayaalkiin iyo hooyayaalkiin waa u gudi kartaan waa hubaa inaad ka aargudi kartaan tilaabadaasna maanta way idinla siman tahay ayadoo haddaad ku dhimataan jahaad ah haddaad wax ku dishaan xaqa waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha sharafta leh
iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo golaha baarlamaanka iyo wasiirada qaranka iyo cid kasta oo xil Soomaaliyeed dusha u ridatay waxaan u sheegaynaa dhacdada meeshaan ka dhacday ardaydan si sharci wax uga qabanin inaan intaan dadweyne ku galno alxalka gaari waayi doontaan arrintaas ay idin sheegaynaa waxaan ka qabnaa Kenya dumar caruur ciyaal wax laga hadaayo ma leh Kenya farmaajo hadduu wax ka qaban waayo tookadan asagana ma rabno dawladna ma rabno ra'iisul wasaarena ma rabno baarlamaanna ma rabno Soomaaliya cadawgeeda gurguurta midka geedaha fuula midka soo gambanaya kibilayn dadka duushiyo galbasaara noqdeen tookadan farmaajo hadduu wax ka qaban waayo madaxweynaha lagu cisaayo naga annagoo 5 gabdhood hadda koor ka soo qaadana qori dhisiga madaxa waa laga qaaday isanka ilaahay waa ogyahay saamaha hadda wax ka qaban waayo ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo ay wax ka qaban waayaan shid iyo dhagaxan ku galaynaa shid iyo dhagax miidaamana qoryaana saga ku furana kula dagaalamayna yaa qaadayna rasaasta qaadayna qorigan qaadayna waxaan dhaafayna male dadweynaha ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay dib u dayactir lagu sameeyay wadooyinka magaaladaasi Beledweyne sidoo warkan uu ku soo diray wariyaha SDN uga soo warramay magaalada Beledweyne Ismaan Aadan Carays qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay howlaha dhismaha dib loogu dayactirayo wadooyinka dhexmara magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan taasoo muddo ka badan 30 sano aan helin wax dayactir ah tan iyo markii burburtay xukuumadii Maxamed Saad Barre waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ee ka warbixinaya aragtidooda ku aadan sida ay ugu farxsan yihiin howlaha tan ka soconaya magaalada Beledweyne bismillaahir rahmaanir rahiim doora leeyahay waa dadka Beledweyne iyo qanna umaleena wadada ayaa aad u farxsanahay maanta qaab loo dhiso waayo waxeeda waana soo dhaweynayna insha Allah hadana irdaamina hadda maanta irdaamina shaqada laga wada waa xaafadaydi ma sha Allah aad ugu farxsanahay wadada inay mataqaanay noqoto wado aan loo ay insha Allah leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعمانة فرحسنا هاي لامي والله بسايا. بمشهد وحنا نوو باغينا أن يسود ويان لامي والله بسايا. أي سمعوا غير قاكان. أي شحدوا ذا أي موجيان أي ذاتك بسايا أي كوهم بليان. مقالي هردان فيكي كالله هذا ياغو فرحسنا هاي إن لصاد لصا ودونيك غربوري هرم غربوري. طمان غاسة مقالة نبدأ دوين. dhammaan Soomaaliya sidoo kale la dhiso marka waa ku faraxsanahay oo soo dhaweynayna bulshada qaar ka mid ah macallimiinta ee Quraanka ka mid ah sidaada waxa weeyaan anigu alxamdulillah tuma salaatu salaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam waxaan dhex taaganahay shaqadii laamiga ee ku socotay waa soo dhaweynaynaa laamiga dhismihiisa aad aan u soo dhaweynaynaa waan u hambalyeeynaa dadka hogaaminaya iyo dadka qabtay iyo shacabka kulli waxa la rabaa in soo dhaweeyaan laga doonayaa anoo arrimaha afka bulshada ku hadlayo waa soo dhaweynaynaa هذا وسلوينا وأنا وتانينا عمل كان قبتين عمل ولا سوي عمل كنا الله ينكو قرب runtii waxaan cid walba maanta ay arkaysaa in arrintaani ay tahay arrin mataqaanaa si fiican martaqaanaa loogu guuleystay waxaan filaynaa inaan wadooyin kale aan samaysano dhammaan cid kasta oo mataqaanaa reer Hiiraan ah caalamka meel kasta ka joogaano waxaan ugu baaqayaa in Hiiraan wuxuu cagta saaray in mataqaanaa barnaamijyada horumarinta ay ka shaqeystaan laga shaqeeyo ama han noqdo maxaa ahay dadka shacabka waxa waaye jidkan waxa ugu dambeysay burburkii berigii oo Talyaaniga ugu dambeeyay hadda waa Ilaahay mahadiis hadaan helnay in jidkii wax laga qabto marka waxaan u sheegayaa aqoon-yahanada iyo cid kastaba shaqo qabiye ah inaan comment laga sii dhiibin oo shaqada oo la sugo ilaa shaqada ay ka dhamaato markaas ka baxdi wixii aragtidooda inay ka hadlaan laakiin shaqo qabiye oo aan dhameystirnayn hadda wax ka sheegtid waxay noqonaysaa inaadan maxuu ahay horumarkii aadan taageersan howlahan dhismaha ayaa muddo ka badan 3 bilood waxa uu ka soconaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyadoo wadooyinkani ay u gudbi doonaan dhanka galbeed ee magaalada Beledweyne taasoo dib u soo celin karta bilicda magaalada Ismaan Aadan Carays SDN TV Beledweyne guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle sida warkan ku faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Yuusuf Shaaciye
magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa gaaray guddiga farsamada soo xulista baarlamaanada labaad ee Hirshabeelle kuwaas oo tan iyo markii la magacaabay ku sugnaa magaalada Muqdisho garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar waxaa xubnaha guddiga ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo maamulka magaalada Jowhar guddiga soo xulista baarlamaanada labaad ee Hirshabeelle oo ka kooban 11 xubnood ayaa waxa ay maalmaha soo socda gudagali doonaan soo xulista baarlamaanada labaad ee Hirshabeelle sidoo kalena xubnaha guddiga ayaa waxa ay kulamo kala duwan ku qaadan doonaan isla magaaladaasi Jowhar iyagoo la qaadan doona maamulka deegaanadaasi degmada Jowhar iyo odayaal dhaqameedka deegaanada Hirshabeelle si ay uga hadlaan arrimaha soo xulista baarlamaanadaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka SDN xaruntiisa magaalada Muqdisho imikana wararkii dibadda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa haweeney u magacaabay garsooraha cusub ee maxkamadda sare madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu magacaabay garsooraha maxkamadda sare haweeney lagu magacaabo Amy Coney oo bedeli doonta baa la yiri booskii ay ka dhimatay haweeneydii garsooraha ka ahayd maxkamadda sare Ruth Bader oo dhawaan geeriyootay Mrs. Roth oo tacsideeda loo fadhiyo ayaa ahayd garsoore u janjeerta dhinaca bidix isla markaana kamid ahayd garsoorayaasha maxkamadda sare ee inta badan taageera shuruucda dimuqraadiga Trump ayaa fursad kale u helay in booska uu ku buuxiyo haweeneydan lagu magacaabo Amy oo u janjeerta dhanka jamhuuriga maxkamadda sare oo ah midda ugu awoodda sareysa hay'adaha dastuuriga ee dalka Mareykanka ayay hadda ka soo hareen saddex garsoore oo dhanka dimuqraadiga ay magacaabeen halka lixda kale ee garsoore ay ka imaanayaan dhanka jamhuuriga xisbiga jamhuuriga waata daawadayaal guud ahaan warkii aad kala socoteen telefishinka SDN waa naga inta ood ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warkayga inta ka horeysa nabadgelyo